بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنت وعن oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan meel walba aad joogtaan. Halkani waa Marqaati TV ku soo dhawaada barnaamijka falanqeynta xogta caalamka. Qodobada barnaamijka aynu ku eegi doonno haddii Allah awood leh oo raali ka noqdo waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay dagaalo culus oo dhex maraya ciidanka dawladda federaalka Itoobiya iyo kuwa Eritrea. Qasaaro xoogan oo labada dhinac soo kala gaaray. Barnaamijka ayaan idinku haynaa Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo muddo badan la xaaladiisa caafimaadna laga deerinayay oo markii ugu horeysay soo hadlay muxuu yiri barnaamijkeena ayaynu ku falanqeyn doonaa sidoo kale daawadayaal barnaamijka waxaan idinku soo gudbin doonaa dawladda Mareykanka oo amar degdeg ku bixisay in ciidamada Eritrea laga saaro gobolka Tigreega kadib dhibaatooyin ba'an oo ay u geysteen dadka rayidka ah xog iyo macluumaad arintan ku saabsan ayaa daawan doontaan iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in dawladda Djibouti ay dhaawacayso walaalnimadii markale ku soo dhawaada barnaamijka falanqeynta xogta caalamka waa hagaag aynu ku bilownay wararka ka imaanaya gobolka Tigreega ee waqooyiga wadanka Itoobiya ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka soconayaan dagaalo iyo iskoorimaadyo u dhaxeeya ciidamada dawladaha Itoobiya iyo sidoo kale Eritrea kuwaas oo shalay gelinkii dambe halkaasi ka bilowday dagaaladan ayaa la isku adeegsaday hub culus waxaana la soo sheegayaa labada dhinac in qasaaro xoogan uu soo kala gaaray iyada oo dagaalada ay ka qayb galeen taangiyada dagaalka ee labada dhinac inta la xaqiijiyay isku dar 20 ku dhow askar ayaa ku geeriyootay waa Itoobiya iyo Eritrea iyadoo dhaawacna konton uu gaarayo sida ay xaqiijinayaan ila wareedyo military oo halkaasi ku sugan sidoo kalena labada dhinac saraakiisha kala hogaaminaysa waxa ay midba kala ku eedeynayaan inay iyagu rasaasta bilaabeen hase ahaatee waxa xaqiiqa in ciidanka Eritrea ay doonayeen inay qaataan hub u badan taangiyo gaadi dagaal iyo sidoo kale qoryaha darandooriga u dhaca oo ay ka furteen ciidamada TPLF hase ahaatee ay sheegeen in wadankooda ay geysan doonaan balse dawladda Itoobiya ayaa arintaasi ka soo horjeesatay waa ciidamada ku sugan halkaasi waxaana ciidanku ay sheegeen in hubkaasi uu yahay hub qaran oo aanay TPLF si gaar ah u lahayn sidaas darteedna aysan qaadan karin ciidanka Eritrea ismariwaa kadib rasaas ayaa halkaasi ka bilaabatay waxaana loo badinayaa rasaastu inay bilaabeen ciidanka dawladda federaalka Itoobiya maadaama dadka hantidooda la qaadanaya iyaga ay leeyihiin dagaalada ayaa ku fiday aagag hor leh waxaana la sheegay in ciidamada Eritrea ay isku dayayaan iyaga oo dagaalamaya inay dib uga baxaan magaaladii ay ku sugnaayeen oo ku dhow magaalada Maqale halkaas oo dagaalka uu ka soconayo dawladaha Itoobiya iyo Eritrea wali wax wara kama aanay soo saarin dagaaladaasi hase ahaatee xaaladda ayaa wali mid aad u kacsan iyada oo xilli walba la fili karo dagaalka in meel kale uu ku sii faafo ama xitaa uu isku bedelo dagaal u dhaxeeya Itoobiya iyo Eritrea ayaa gacan weyn siinaysay ciidanka dawladda federaalka ah ee Itoobiya kuwaas oo dagaal adag la galay jabhadii TPLF ee gobolka Tigreega waxaana Eritrea ay sheeganaysaa guulo waaweyn in iyadu sabab ay u ahayd inay jabaan ciidamada TPLF kadib markii magaalooyin dhowr ah iyadu gacanta ay ku dhigeen ciidankeeda lama oga sida ay wax ku dambeyn doonaan mana jirto ilaa iyo hadda wax wara oo mas'uuliyiinta ay ku qaboojinayaan xiisadda halkaasi ka jirta wixii ku soo kordha daawadayaal barnaamijyada dambe ee Marqaati TV ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii Allah awood leh oo raali ka noqdo dhinaca kalena bal aynu eegno dawladda Mareykanka ayaa waxa ay si degdeg ah ku amartay Eritrea in ciidamadeedu ay kala baxdo gobolka Tigreega Mareykanka ayaa amar ku bixiyay in Eritrea sida ugu dhaqsiyaha badan ay dhammaan kala soo baxdo ciidamadeeda gobolka Tigreega sida ay ku warantay wakaalada wararka ah ee AP wakaalada oo soo xiganaysa afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay inay hayaan warar la isku haleyn karo oo ku saabsan in dhac kufsi iyo sidoo kale weeraro ay ka dhaceen xeryaha qaxootiga iyo sidoo kale in la geystay tacadiyo ka dhana xuquuq insaanka waxa jira cadeemo muujinaya in ciidamada Eritrea ay si qasab ah dib ugu celinayaan Eritrea qaxooti u dhashay dalkaasi oo ku sugan xeryo ku yaala gobolka Tigreega dawladda Itoobiya waxay horey u beenisay in ciidamada Eritrea ay ku sugan yihiin gobolka Tigreega kadib dagaalkii dawladdu ay ku qabsatay gobolkaasi hase ahaatee ciidamada Eritrea ayaa sidoo kale waxa lagu eedeynayaa in dhibaatadii ugu xooganeed ay u geysteen dadka shacabka ah ee ku sugan gobolka Tigreega gaar ahaan meelaha iyagu gacanta ay ku dhigeen waxaana la sheegay in haweenkii Tigreega ay kufsadeen sidoo kalena ay boob kula dhaqaaqeen dhammaan guryaha
guryaha ku yaala halkaasi waxaana la sheegay in aysan ka tagin xitaa raashinkii dadka sahay ahaanta ay u haysteen ay qaateen iyada oo halkaasi ay halis ugu jirto macluul daran maadaama hay-adihii samafalka ahaana ilaa hadda aysan gudaha u gelin weli daawadayaal arrimaha Itoobiya ayaynu ku guda jirnaa barnaamijka falanqeynta xogta caalamka ee marqaati TV-na waa la socotaan ee markana bal aynu eegno ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa markii ugu horeysay qoraal soo dhigay barta Twitterka xilli maalmihii u dambeeyay baraha bulshada dalkaasi la isla dhexmarayay warar ku saabsan xaaladiisa caafimaad Abiy Ahmed ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay qoraal uu ku amaanayo hogaamiyaasha maamulada Oromada iyo Soomaalida gaar ahaan taageerada ay u muujiyeen dawladda labadii toddobaad ee la soo dhaafay waxa la waayay wararka ra'iisul wasaaraha maadaama aanan lagu arkin fagaarayaasha ama baraha bulshada hay-adda sirdoonka qaranka iyo nabad sugidda ee Itoobiya oo magaceeda loo soo gaabiyo NISS ayaa wacad ku martay in ay la xisaabtami doonto qof walba oo baraha bulshada ku daabaca ama ku faafiya wax ay ugu yeertay wararka marin habaabinta ah ee ku saabsan xaaladda caafimaad ee ra'iisul wasaaraha hadalkan ka soo baxay dawladda ayaa hadalhayn hor leh dhaliyay taas oo ku saabsan halka uu jiro Abiy Ahmed waxa la isla dhexmarayay warar kala duwan oo ku saabsan xaaladda caafimaad ee ra'iisul wasaaraha gaar ahaan in dalka dibadiisa loogu qaaday xaalad caafimaad iyada oo halka loo qaaday xitaa warar kala duwan ay ka soo baxayeen dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Itoobiya ayaa weli far ku godaya Twitterka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxaana ay sheegayaan in Twitterka qof kale uu wax ku qori karo sidaas darteedna laga yaabo weli waxa la sheegay inay wax ka jiraan oo ah in ra'iisul wasaaraha rasaas lagu dhaawacay ama sidoo kale la sumeeyay hase ahaatee wixii xaqiiqa waxay imaan doonaan marka muuqaal ahaan loo arko ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ugu dambeynna guddiga xaqiiqa raadinta ee bishii December loo xilsaaray soo baaridda khilaafka Soomaaliya iyo Kenya kadib kulankii IGAD ee Djibouti ayaa warbixin ka soo saaray baaritaankooda kadib booqasho ay ku tageen labada dal guddiga ayaa warbixintooda ku sheegay in aan cadeemo sax ah loo haynin in Kenya ay faragelisay Soomaaliya sida ay ka cabatay dawladda Soomaaliya waxayna sababeeyeen qodobo kale oo ku jira tabashada Soomaaliya ee ka dhanka ah Kenya wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abukar Dube oo maanta shir jiraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warbixinta guddiga sida uu wasiirku sheegay Soomaaliya inay aad u soo dhaweysay guddiga Djibouti ee loo xilsaaray arrimaha Soomaaliya iyo Kenya balse ay aad ula fajacday warbixinta ka soo baxday wasiirka oo arrimahan ka hadlaya ayaa yiri qashayadu oo ay xaqiraad noqoto ay soo aruurayso riboodkii uu soo baxay riboodka waxa hogaaminaya 7 xubnood waxa gudida xaqiiqaadka waxay ahaayeen 6 reer Djibouti ah iyo xubin ka socotayga 6 reer Djibouti waxay ahaayeen ambassador Yaasin Cilmi Buux oo safiirka Djibouti u fadhiya Kenya ambassador Aadan Xasan Aadan Belelo oo ambassadorka Djibouti u fadhiya Soomaaliya General Daahir Cali Maxamed oo general ka tirsan ciidamada Djibouti Colonel Cali Aadan Colonel Maxamed Barkad Colonel Hussein Idris iyo xogayaha oo ka socday iga riboodkii soo baxay dawladda Soomaaliya wuxuu ku noqday fajac iyo amankaag iyo qaadan waa waxaan loo fadhiyay oo aan la filayn wuxuu ka hadlayaa riboodka ama warbixinta ay guddidu soo saareen waxa la wixii Soomaaliya ay dibsanaysay ee ay sheegatay guddidii xaqiiqa raadinta ee Djibouti ka socotay waxay ka soo saareen rakama jiraan airspace-ka ama hawada oo lagu soo xadgudbay waxay yiraahdeen Soomaaliya khaldanaydoo aan kala reebin diyaaradaha kuwa xamuulka iyo kuwa dadka qaaday iyo kuwa ciidanka iyo kuwa halooda waxay ka hadleen ciidamada Kenya inaana imanin dhulka Soomaaliya waxay qoreen in arrintu tahay arrin hore oo Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxaysay ee aanay ahayn arrintan hadda keentay علاقاتك لو شري waxay isticmaaleen waxay yiraahdeen the long standing grievances Djibouti ee Soomaaliya iyo ka dhaxeeya Kenya ma jirin marka laga reebo arrinta badda arrintaana runtii arrin gefa oo la khalday bay ahayd waxay kaloo ka hadleen inaanay ciidamada Kenya ee AMISOM qaybta ka ahayd ka bixin deegaano muhiim ah oo lagu dhibaateeyay markay ka baxeen dadkii Soomaaliyeed ee gobolka Gedo gaar ahaan Buusaar iyo Faxfaxdoon
iyo deegaamadii aynu ka soo sheekeynay runtii markii guddida la sameeyey sidaan horeba u sheegay aad baan u soo dhaweeyey laakiin waxa ka soo baxay waxay nagu noqotay fajac iyo amankaag waxaan xasuustay markaan arkay warbixinta ninaanu isnaqaan baanu habeen annagoo wada joogna fiid buu iga tegey subaxdii buu isoo wacay markaasuu nin xalay markaan kaa tegey gabadh baanu isbarannay waxaan rabaa inaan gabadhii arooso oo goormaad aroosaysaa berri baan rabaa inaan guursado wax ku dee dhaqan baynu leenahay horta inaad qoyska iyo gabadha iyo barato soo ma ahayno wuxuu yidhi gabadhani nin aniga ka horreeyaba weligeed salaamu calaykum ma odhan telefoonna kama qaban dhalinyaraad jiro aad baa ku fahmaysaan dabeedna waxaan ku yidhi oo yaa kuu sheegay inaanay weligeed qofna salaamu calaykum odhan telefoonna ka qabano iyadaa ii sheegtay dhammaan riboodka waxaa ku qoran Juma ii sheegtay Monica Juma wasiirka difaaca ee Kenya sida ay tiri Monica Juma say waxaa ku qoran riboodka Juma ii sheegtay riboodkii Monica Juma ayaynu markaa halkan akhrinay I wish in iyadu qori leh sababtoo wax badan bay ka xishoon leedahay haddii iyadu qori leh wasiirka difaaca Juma daliishu maxay tahay markaa hal dhinac bay horta warkoodii qaateen way diideen inay tagaan dhulkii Soomaalida laba jeer bay Kenya ku noqdeen Mandheeray tageen waxa laga bariyay balad xaawo u soo gudba waa diiday dadkii baa loo diyaariyay ciidamadii baa loo diyaariyay shacabkii baa loo diyaariyay soo gudba lagu yiri waa diiday marka xamar yimaadeen baa la yiraahdaa aanu idin kaxaynoo diyaaradeed saaro balad xaawo idin geeyno waa diiday arrintaasi dareen bayna gelisay markaaba labada jeer ay ku laabteen dareen bayna gelisay inay hal dhinac warkoodii wasiirka difaaca qaataan dareen bayna gelisay ta ugu cajiibsan waxa weeye waqtigu soo baxay riboodka ama warbixintu wuxuu soo baxay 25 January oo daraad waxa dhacay soo ma xasuutaan dagaalkii waa dhacay duulaankii qaawanaa ee araxda ay Kenya kaga jabtay iyo dabadhilifkii la socday baa 25 dhacay if you look like elephant walk like elephant sound like elephant then you are elephant haddaad sida maroodiga u socoto sida maroodiga u cido sida maroodiga u hadasho then maroodiga haddaad maxaa isku soo beegay 25ka iyo riboodka waxaanu ka fahanay in lagu bari yeelo waxay doonayeen inay gobolka gada qabsadaan dabadeedna la bari yeelo yiraahdo Kenya kuma jirto ayaaba cajiibka waxa ka mid ah ribood ku jira waxaanu diyaarad baanu ku dul marnay xuduudda ma joogaan ciidamadkii waxaanu waraysanay qolada Jubbaland waxay noo sheegeen in aan ciidanka Kenya halka ka bixin waxa soo dhin waxa wax bias ah faceless ah unfair ah impartial wuxuu ka soo guud ahaan daawadayaal inta ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka falanqaynta xogta caalamka intaaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh